Inta xiritaanka marin-biyoodka Hormuz iyo Bab-el Mandab haddii Iran iyo Xuutiyiintu ay xiraan maxaa dhici kara? Marin-biyoodka Hormuz iyo Bab-el Mandab ayaa ah meelaha ugu muhiimsan ee ganacsiga iyo tamarta adduunka. Labadan marin-biyood waxay isku xiraan Bariga Dhexe, Afrika, Yurub ilaa Aasiya, waxa ayna maalin kasta mara shidaalka iyo badeecooyinka malaayiin tan ah. Haddii Iran iyo Xuutiyiinta Yemen ay si wadajir ah u xiraan labada marin-biyood, waxaa dhici karta isbeddel weyn oo dhaqaale oo ka mid noqon kara mid amni oo caalami ah. Muhiimadda marin-biyoodka Hormuz marin-biyoodka Hormuz ayaa qaada ku dhawaad 20% ilaa 25% shidaalka adduunka laga soo dhoofiyo, taas oo ka dhigaysa halbowlaha ugu weyn ee tamarta caalamka. Xiisadiisu waxa ay si toos ah u joojinaysaa dhoofinta shidaalka ee dalalka Khaliijka sida Sacuudi Carabiya, Kuwait iyo Qatar. Muhiimadda Bab-el Mandab oo isku xira Badda Cas ilaa Badweynta Hindiya ayaa isna qaada qiyaastii 10% ilaa 12% ganacsiga adduunka iyo qaybaha ugu muhiimsan ee shidaalka, waana marin-biyoodka ay maraan maraakiibta u socda Yurub ilaa Aasiya iyagoo sii maraya kanaalka Suez. Maxaa dhacaya haddii labadaba la xiro? Kor u kac weyn oo shidaal haddii labada marin-biyood la xiro ilaa rubuc 25% sahayda shidaalka iyo gaaska adduunka ayaa halis gali karta. Tani waxa ay keeni kartaa in qiimaha shidaalka si degdeg ah u kaco, taas oo saameyn ku yeelan doonta nolosha dadka caadiga ah. Ganacsiga caalamiga ah labada marin-biyood waxa ay halbowle u yihiin ganacsiga, xiritaankooduna waxa uu keeni karaa hakad weyn oo ku yimaada badeecooyinka, sahayda cuntada iyo qalabka warshadaha. Qiimaha alaabta oo kaca marka maraakiibta lagu qasbo inay maraan waddo dheer, safarkooduna wuu dheeraan karaa wuxuuna gaari karaa 10 ilaa 14 maalmood. Kharashaadkuna aad buu u kacayaa, taasina waxa ay sare u qaadaysaa qiimaha badeecooyinka adduunka oo dhan. Dhaqaale burbur ku yimaada dalalka saboolka ah. Dalal badan oo soo dejista ama ku tiirsan soo dejinta, gaar ahaan Afrika iyo Bariga Dhexe, ayaa si weyn u dhibaatoon doona sababtoo ah qiimaha cuntada iyo shidaalka ayaa kor u kici doona. Khatarta dagaalka oo sii fida. Xiritaanka labadan marin-biyood waxa ay kordhin karaan xiisadda caalamiga ah, iyadoo quwadaha waaweyn sida Mareykanka iyo Shiinaha iyo Yurub ay si toos ah u faragelin karaan si loo furo marin-biyoodkan. Nabadgelyada badaha oo burbura, weeraro lagu qaado maraakiibta iyo cabsi amni waxa ay wiiqi kartaa nidaamka ganacsiga badda, taas oo keeni karta jahwareer caalami ah. Haddii Iran iyo Xuutiyiinta ay xiraan marin-biyoodka Hormuz iyo Bab-el Mandab, saameyntu ma noqon doonto oo keliya mid gobolka oo ku kooban, balse waxa ay gaari kartaa heer caalami, waxaana dhici karta qiimaha shidaalka oo cirka isku shareera. Ganacsiga hakad ayuu gali karaa, taas oo dhalin karta dhaqaale burbur iyo khatar amni oo weyn. Xaaladda ayaa muujinaysa sida marin-biyoodyadaan ay ugu muhiimsan yihiin ama laf-dhabar dhaqaale ugu tahay adduunka, isla markaana ay yihiin meelaha ugu nugul xiisadaha ee loo yaqaan geopolitics-ka. Ma doonaysaa inaad noqoto qof Qur'aanka Kariimka si sax u akhriya? Ku soo dhawow markaska barashada Qur'aanka Kariimka ee Darul Qur'an Online. Waxaad ka heli doontaa Qur'aanka Kariimka tajwiid iyo taxfiid, hingaada Qur'aanka bilow ilaa heer sare, ducooyinka muhiimka ah sida Xisnul Muslim. Faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa ka mid ah macallimiin khibrad u leh casharada online-ka. Meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waa la qaadanaya. Waxaa kaa hortaagan maanta bilow safarkaaga Qur'aanka Kariimka. Ha noqon qof dib u dhigta khayrka Alle. Diiwaangeli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamadda WhatsApp-ka hoose.